General Axmed Maxamed Maxamuud Tareedisho taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 27aad ayaa soo gaaray degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay taliyaha saraakiisha ciidanka ee ku sugan degmada iyo ciidanka xoogga dalka General Axmed Maxamed Maxamuud Tareedisho ayaana faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa waxaan maanta kormeeran ku nimiday degmada Bulaburde taliska qaybta 27aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anaga u koorgalayna sida maxaan ku yiraahdaa ciidamadeenu ay difaacida ugu jiraan howlahoodana ay u wataan isla markaasna taliska qaybta 27aad rugtiisu tahay Bulaburde qaabka uu u shaqeeyo iyo sida hadda shaqadiisu u socoto iyo saraakiisha iyo joogista ciidanka koorgalidaas ayaan ku dhex jirnaa mudana waa ku dhex jiri doonaa insha Allah taliyaha oo hadalkiisa sii wato ayaana dagaalkii ay nabadiidka al-shabaab ay ku soo qaadeen xalay degmada Bulaburde iyo Jallaqsi faahfaahin ka bixiyay isagoona ku amaanay ciidamada qaranka iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Bulaburde iyo Jallaqsi sida ay isaga difaaceen cadawga argagixisada al-shabaab ayagoona ciidamada ay saaka howlgal ka sameeyeen degmada iyo deegaanada hoos yimaado kaga mahadcelinaya geesinimada leh ee ay maxaan ku yiraahdaa xalay isaga difaaceen nimankan argagixisada ah iyaga iyo maxaan ku yiraahdaa dhanka Jallaqsi oo ay iyagana wax ku tuurtuureen xalay qasaare badan lagu gaarsiiyay cadawga sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ciidamada AMISOM gaar ahaan Jabuuti oo deegaankan joogto howl badan ka qabatay operation-adii ama howlgaladii xalay dhacayna qayb weyn ka qaadatay Jallaqsi iyo Bulaburde dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan u mahadcelinayaa gaar ahaan qaybta 27aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti waa mahadsantiin shaqada aad qabateen ayaan leeyahay taliska qaybta saraakiishiisa oo maxaan ku yiraahdaa halkan degan goordhowna la soo dejiyay una dhabar adeegay sida ay shaqada qaybta 27aad uga soco lahayd taliskeeda ku meel gaarka ee Bulaburde u dhabar adeegayna aadan ugu mahadcelinayaa Sakariya Ali Raage SNA Radio Bulaburde